السلام عليكم أصحابي كسو dhawaada filin xiiso badan fadlan intaa filinka guda gelin subscribe saaraadiyaada ayaa u mahadsan tahay filinkeennana wuxuu ku bilaabanayaa atiriishadeena waxaana lagu magacaabaa luuna waa gabar kibir badan oo taajirad ah iyadana waa la diyaarinayaa si ay ooga qayb gasho bandhig lagu soo bandhigayo dhar fashion ee soo saareen shirkada familkeeda ay leeyihiin luuna way diidaysaa gabdhaha diyaarinayeen xitaa inay diyaariyaan waxayna leeyahay adinku uma qalantiin inay diyaarisiin aniga waxaanahay qof qaali ah dhanka kalena atooraheena ayaa arkaynaa waxaana lagu magacaabaa tiyaanna waa madaxa ugu sareeya ee shirkadan asiga ayaana maamulo ka ah asigana gacanyarihiisa ayaa si hoos ula hadlayo wuxuuna leeyahay ma laga yaabaana maanta inay imaato gabadha kibirka badan luu ayuuna ula jeeda asiga tiyaanna wuxuu dhahaa kibirleydaas way imaanaysaa waan huba aniga luuna waa imaanay waxayna bilaabay dharkii inay xayeysiisay iyada waxaana arkaynaa gabar bandhiga daabanaysa iyada gabadhaana waxaa lagu magacaabaa moo iyadana waxay ka shaqaysaa shirkadan moona waxay dhahay maanta maalintaada si fiican kuma dhammaan doonta luu iyadana waxaaba umalaysaa hadalkeeda inuu saxnaa meesha bandhig lagu soo bandhigayna waxaa la keenayaa shimbiro luuna shimbiraha ayaa arkay waxayna bilaabay inay ka cabsatay qayliso siday u soo socotan iyada tiyaan laabtiisa ayay galaysaa waxaana halkaas ku ogaanaynaa luu shimbiraha inay ka cabsatay eena neceb tahay iyada maadaama iyada si fiican wax u soo bandhigi weysayna meesha way ku ceeboobay joornaalada ayaana lagu soo daawacayaa inay meesha ku fashilantay luuna waxay imaanay qolka la isku diyaaray waxaana bilaabay alaabta meesha taala dhan inay jijibiso sababtoo aad ayay wax naqsanayd maadaama akhbaartaas xun laga faafiyey tiyaan ayaana meesha imaanaya wuxuuna isku dayayaa inuu ka celiyo waxyaabaha ay samaynaysa luuna waxay leeyahay isku dayin adiga faarihayga inaad soo faragashato haniiloobin adiga inaad tahay shaqaale xun oo familkeyga u shaqeeyo tiyaanna oo ka xumaana hadalkeeda wuxuuna dhahaa weligaa isma bedelaysa adiga meeshan waa iskaaga tagaa asiga luuna keligeeda ayaa meesha kusoo haraysa hal marna cod ayay maqlee waxaana la dhahayaa dhaqankan xunaa mar walba dadku ila dhaqmaysa cinqaabtiisa waa inaa martaa hal marna shimbir ayaa laga dhigaa iyada mararka qaarna bini'aadan ahaan ayaa u arki doonaa asxaabay laakiinse filinkiina shimbirta ayay ku jiloosaa luuna way qaylinay markay miraayadu isku aragtay iyadoo shimbir ah codkii ayaana mar kale maqlay waxaana la dhahayaa maadaama shimbiraha necebta ayaan shimbir kaaga dhignay tan waa cinqaabtaada adiga sababtoo dadka si wanaagsan ulama dhaqantid maalin walban ilaa qoraxda ka soo baxaysa sidaan ayaad ahaan doontaa gabdhaha shaqaalaha ayaana qolka soo galayaan si ay u hagaajiyaan luu oo shimbir ayayna meesha ku arkayaan maadaama iyaga waxba ka ogeyna luu inay tahay waxay go'aansanayaan inay dilaan sababtoo luu iyada ayaa shaqaalaha hore ugu dhaaday shirkadeeda wax shimbira kuma arki karo haddaa aragtiinna waa inaad dishiin haddii kale aniga shaqada ayaan idinka burinaya iyagana kob ayay ku dhufan rabeen laakiinse tiyaan ayaa badbaadinayay maadaama uu shimbiraha aad u jeclaa wuxuuna ku dhahaa gabdhaha shaqaalaha iska dayay shimbirtan hadilin aniga ayaa meel geynayo iyagana meesha way iskaaga tagayaan tiyaanna wuxuu dhahaa shimbirta yar waxbaa ka cabsanin aniga ayaa meel nabada ku geynayo laabtiisa ayuuna gelinayaa luuna markay aragto qofkii laabtiisa ku jirta inuu tiyaan yahay iyadu way qaniinay meeshan way iskaaga buube banaanka ayaana imaanay shaqaalayaasha dhanna waxay isku dayayaan inay dilaan tiyaan ayaana meesha imaanaya wuxuuna dhahayaa cid taaba karta ma jirto shimbirtan luuna meesha way ka tagay tiyaanna wuxuu dhahaa adigaa shimbirahan soo kiraysa soomaahanna moo si aad u cabsi gelisid adiga luu moona wax hadala ma dhahaysa waa inay iska aamusaysaa tiyaanna waxa uma dhahaay sababta uu usii tadheeraynaya asiga laakiinse ma wax walbay samaysay iyada aad ayay ugu faraxsaneed luu ayaana arkaynaa iyadana banaanka ayay joogta aad ayayna u xanaaqsanayd maadaama waxyaabaha ku dhacooya aysan waxba ka qaban karin tiyaan ayaana meesha imaanaya wuxuuna arkayaa inay dhaawacan tahay wuxuuna dhahaa waan ka xumay shimbirta yareed waa dhaawacantay laakiinse dhib mala aniga ayaa ku daaweynaya gurigeyga ayaana ii raacaysaa asigana gurigiisoo keenaa sariirtiisa ayuuna saaraya wuxuuna bilaabaa inuu dharkiis ka siiba luuni indhaha ayay ka waxayna dhaheen maxaa kaa qaldanna adiga tiyaan gabar ayaa qolka kugula jirta miisku xishoonaysa miyaane tiyaanna hadalkeeda ma uu maqlay maadaamay shimbir ahayd wuxuuna dhahaa wax yar isug shimbirta yar waan soo qubaysanaa kadib ayaan ku daaweynayaa luuna waxay bilaabay intuu maqan yahay qolkiisa inay dhinac walba ka fiiriso waxayna arkay sabir ay yaraantooda wada galeen inuu qolku u dhex yaala asiga waxayna dhahay ilaa hadda sabirkan maxaa u haystaan asiga talow tiyaan ayaan u imaanaya wuxuuna bilaabaa inuu dhay maadaamay dhaawacneed luuna markuu dhayay agtiisa naxariisii deganaan ayay ku dareemaysay tiyaanna asiga wuu seexanaa laabta ayuuna gelinaya maadaama uu malaynaya shimbir iska caadi ah anikan waa la yaabeynaa markaa aragnay inay jirto shimbir lala seexo karo oo aan buubaynin oona la dhahay waan soo qubaysanaya isii sug oo kusii sugayso shimbir aan la heli karin oo idabliiga dheh luuna marabin iyadoo laabtiisa ku jirta inay seexato si kasta ayayna iskugu dayaysaa inay ka fara baxsato laakiinse marka dambe way daali laabtiisa ayayna iskaaga seexanay subax ayaana arkaynaa luuna waxay soo kacay iyadoo bini'aadanimadeeda kusoo laabatay aad ayayna u naxay markay aragto tiyaan inay agjifta iyadoo bini'aadanimadeeda kusoo laabatay oo aan haddana wax dhara kuusii wadanin sariirta ayayna tartiib uga soo deganay qaar dharkiisa ka mid ayayna xiranaysaa iyadana qolkiisa way iskaaga soo tagay ugu dambeynna gurigeeda ayay imaanaysaa shaqaaladu u shaqaysa ayayna ku dhahay hadi kadib qolkeyga qofna uma soo fasixi karti markay qoraxda dhacdo luun iyada qolkeeda ayay ku jirta xanuun saa'id ayayna dareemaysa maadaamay shimbir isku bedeli rabto ugu dambeynna iyada shimbir ayay isku bedelaysaa waxaana arkaynaa luu iyada inay iska soo fikirtay cuntada shimbiraha qolkeeda kusoo diyaarsatay waxayna dhahay bas miyaana hadi kadib cuntadan qaabdarrad
badan miyaa maalin walba aniga cunayaane bes waa noloshayda dhan way u dhammaata aniga iyadana codka ayay mar kale maqle waxaana la dhahaa haddii rabti inaad bini'aadanimadaada ku soo laabatid saddexdan shuruud aan kuu sheegi doono waa inaad 3 bilood gudahooda ku samaysaa shuruudda koowaad waa inaad samaysaa wax walba wanaagsan shuruudda labaad waa inaad dadka ixtiraamtaa shuruudda saddexaad waa inaad heshaa qof si dhaba kuu jecel shumiskiisa luuna waxay dhaheen maxaa ku hadlaysaan adiga yaabaayana qofka anigii jeclaanay dadka dhanba naftaa u keenay waxaana la dhahaa aniga midaas waxba nagama gelin haddii aad saddexdaas shuruud ku fulibaysa 3 bilood gudahooda weligaa shimbir ayaa ahaa doontaa luuna waxay dhahay 3 bilood maxaaba in hal maalin gudaheeda ayaan ku tusayaa shuruudahaada oo dhan inaan ku sameeyo luuna nin ayay soo kiraysanaysaa si oo u shumiyo markuu isku day inuu soo dhawaadan iyada dharbaxsha iyo dhigta fujinaysaa luuna qof dhan inuu kasoo agdhawaado ma jecleen iyada kibirkeeda dartiisa luuna waxay dhahay shuruudaha kale dhan aniga waan sameeyey laakiinse shuruudan saddexaad aniga waan awoodi lahay tiyaan ayaan u imaanaya iyada wuxuuna leeyahay maxaaba arrinta muhiimka shirkaygii iga soo waday waxaan halkaas ka ogaanaynaa luu inay iyada tiyaan meeshaan ugu wacday luuna waxay dhahay gacanteyda shumi waxayna rabtay shuruudda saddexaad inay buuxisay iyada qofka keliya kasoo agdhawaa karaya nafteyda kibirka badan aqbali kartana tiyaan ayay u aragtay shumiska laga rabana noocan ayay u malaynaysay iyada laakiinse noocan muusan ahayn afaaraa waaweynka ayuu ahaa tiyaanna wuxuu dhahaa lalabada ma igu wacdayna adiga shirkayga dhan ayaa kaaga soo taga soo ma ogid luuna waxay dhahay waaba inaa ii mahad celisaa maadaama ku sii fursadan qaaliga ah qof walba aniga gacanteyda iskama shumiyo tiyaanna meesha wuu iskaaga tegi rabaa asiga laakiinse qoraxda ayaa dhacaysa luuna xanuun ayaa qabanaya iyada sababtoo waxaa la gaaray waqtiga shimbirtii isku bedeli lahayd tiyaanna darteeda ayuu u soo laabanaa woona qaadaya asiga qolkeeda ayuuna keenaa luuna markuu qolkeeda keenay inuu arka ayay diidaysa iyadoo shimbir isku bedelayso sidaas darteedan iyada waxay dhahay qolkaygii iiga bax asigana qolkeeda oo iskaaga baxa iyadana shimbir ayay isku bedelaysaa luuna waxay dhahay sidaa macquul ma aniga shuruudo qaar ayaan sameeyey ilaa hadda maxay wax iska kay bedeli laayihiinne guriga tiyaan ayaana iska imaanaya iyadoo shimbir oo iska murugsan tiyaanna uu arkaa dhulka ayuuna kasoo qaadaa wuxuuna bilaabaa inuu la sheekaysto wuxuuna dhaha ma ogtahay in shimbirta yarid luu waalidiinteedii intay dhimanin ka hor iyada qof wanaagsan ayay ahayd dadkana si wanaagsan ayay ula dhaqmi jirtay sidaana qof xun uma ahayn iyada luuna waxay soo xasuusanay maalintii waalidiinteeda dhimanayeen maalintaasna shaqaalada gurigooda ka shaqaysa ayaa u imaatay iyada waxayna u sheegtay diyaaraday waalidiinteeda saarnaayeen matooradeeda inay shimbiro galeen sidaas darteedana matoorada diyaaradda inay halaabeen waalidiinteedana ee diyaaradda la gadoontay luuna maalintaas wixii ka dambeeyey shimbiro dhan weyna cadiyada waxayna u aragtay waalidiinteedii inay iyaga ka dileen waqtiga hadda la taagan yahay ayaana u soo laabanaynaa luuna hal mar meel la yaable iyadoo joogta ayay is arkeen naag duqo iyada weg ayayna meesha ku arkeen naagtana waxay dhee waa aniga qofka sidaan kaa dhigo cinqaabtan ku marsiiyey luuna waxay dhee sababaa sidaan iigu samaysanayaana tahay adiga naagtan waxay dhee aniga gabar sidaadoo kale ayaan ahaa oo waalidiinteeda ka dhinteen lacag fara badanna ee uga tageen kadibna dhimashada waalidiinteedii waa iloo waay sidaadoo kalena dabeecado xunxun ayaa la soo baxay aniga sidoo kalena qof walba wanaagsan oo aniga iga agdhabaa waa iskaaga ciyaara kibirkayga dartiisa ugu dambeyn aniga meel xun oo laga laaba karin ayaa soo istaagay markaasna aniga hal qof oo i caawisa xataa waa waaye sababtoo dadka dhan aniga ayaa isku diri kibirkaygii dabeecadaydu xumaata darteeda anigana markaas wixii ka dambeeyey nolosheeda dhan meeshaas ayaa kusoo afjar waani isdilay sababtoo nolosha dhan ayaa ii soo urta sabab kala kusii noolaadana ma lahayn laakiinse aniga kuuma ogolaanayo wadada aniga maroo kale adigana inaa martid sidaa wadadaas kaaga celiyana xitaa haddii ay noqoto aniga inaan ku cinqaabo waan ku cinqaabaya laakiinse haddii aa shuruudaha uga soo baxday sida aan kuu sheega aniga waan ku cafinayaa shimbir dambana adiga ma noqon doontid waa balan duqdan hal mar ayaa la waayna iyada luuna duqda qisadeeda markay maqasho kadib waxay go'aansanay hadi kadib inay isbedeshay qof wanaagsan noqoto si aysan wax walba u weynin maalintii xigtayna luu shirkada ayay soo aaday iyadana tiyaan ayay xafiiskiisa ugu imaanaysaa waxayna leedahay waxaan u baahanahay inaan shaqadii berti si aan u shaqaysto tiyaanna wuxuu dhaha waa la yaab maanta adiga ma rabtid bi inaad shirkadan ka shaqayso oo aan shaqo ku baro luuna waxay dhahay haa war kalena uma baahni ibaro keliya adiga hani iloobin gabadha shirkadan iskale inaan aniga ahay oo adiga ku meel gaar ahaan iigu sii haysa maadaamay waalidiinteedii ku dhiibeen ilaa aniga shaqada aan ka baranayo tiyaanna wuu ku xanaaqaa xafiiskiisana wuu ka bixi rabaa asiga laakiin si luu aqliya isticmaalay waxayna bilaabay inay calool jilicsato asiga waxayna dhahay tiyaan adiga miilowdayna waalidiinteedii inay kusoo koriyeen markay waalidiintaada dhinteen kadib haddana markay dhinteen abaalkooda sidaan miyaa ka dhigaysaane intaa gabadhooda garab sii laheed oo aad shaqada u kala bari laheyd si ay shirkadooda gacanta uga sii haysay u sii maamusho tiyaanna wuxuu dhaha haddii luu rumiyay kaa tahay shaqadiina ku kala bara maarabtaane luuna waxay dhahay haa asigana waa u soo dhawaanaa wuxuuna dhahaa dharka bixihe hadday sidaas tahay luuna waxay dhahay maxaa ku hadlaysaan adiga wax yar kadib ayaana arkaynaa luuna dharka shaqaalaha ayuu u xira tiyaan luuna waxay dhahay dharkan wax dhaama ma jiri miyaana aniga dhan shaqaale caadiya u ekaaday tiyaanna wuxuu dhahaa cijiyahan feyga xataa inaa kaa bixiyay ahayd katiinka qaaligaa wadatay boorsadan xataa lama ogolo meeshaan adiga shaqaale ayaa ka tahay shaqaalahan waxyaabahan looma ogolo moo ayaana meesha imaanaysa iyada waxayna dhahay luu adiga inta maxaa ka samaynaysaane luuna waxay dhahay soo shirkadeyda ma ahana waqtigaa raba ayaa imaanaya kaala adiga maa ku weydii lahaana
waqtiga aniga imaanayo tiyaana wuxuu dhaha tan waxba yee kuwaalin inay shirkadda ka shaqaysay shaqada kala barata ayay u imaatay shirkadda maanta luun iyada hadalkooda maba ka helinin meeshan way iskaaga tagay moona waxay dhahay tiyaan gabadhaan maxaa oga ogolaatay inay shirkadda ka shaqayso waa ogta adiga luu way kibir badantaa weena manyac badantaa hal maalin xataa kama shaqay karta shirkaddan tiyaana wuxuu dhaha aniga waa ku qasbanaa shaqada haddee diyaar u tahay iyada inay barato aniga inaan baro sababtoo midaan xaq ayay u leedahay luu waa ogta adiga waalidiinteedii inay abaal ii galeen wax yar kadib aan arkaynaa luuna tiyaan ee soo baxay waxayna ku dhaheen tiyaan aniga waa dhaawacma waana dhimara waa iga soo gaar tiyaanna asu ordaayo goobta shaqaalaha shirkadda imaana luuna waxay bilaabay inay ku dul oysi iyada tiyaanna wuxuu dhahaa maxaa kugu dhacay luuna waxay dhahay intaa shaqada qabanaya cidiyahayga feega ayaa iga jabay tiyaanna wuxuu dhaha adiga inay wax ku gaarayna u malaynaya hadda maalaayacniga ma ii soo wacdayna aniga teeda kale aniga koodiisoo kuuma sheegin cidiyahan inay iska siibtid aadan ku shaqay karin asigana dhulka ayuu ka istaajinaya luuna saacadiisa ayay fiirinay waxayna arkay waqtigii qoraxda dhici lahayd in la gaaray waxayna dhahay tiyaan meeshaan igabad hore ayayna u sii jiiday iyagana intay sii socdeen jaam ayay waddada ku galaayeen qoraxda ayaana dhacayso luuna sida caadada ahayd xanuun ayaa qabanaya maadaamay shimbir isku bedeli rabtay tiyaana wuxuu dhahaya maxaa kugu dhacay iyadana been ayay u sheegay waxayna dhahay caloosha ayay xanuunaysa wax kale ma jiraan gaariga ayayna ka deganayay intoosan arkin iyadoo shimbir isku bedelayso meel gees ayayna imaanay toos ayayna shimbir iskugu bedelay tiyaana wuu soo raadinaya iyadoo shimbir ayuuna arkaa asigana ilaa hadda waxa uma fahmin shimbirtiisa caadiga ahayd ayuuna u malaynayay woona soo qaadaya wuxuuna dhahaa shimbirtii yareeday inta maxaa ka samaynaysaa waddada gurigayga loo soo mar miyaa baratay kaala aniga ma ii xistiin ay imaati maa rabtan adiga wuxuuna dhaha aniga lu ayaan laahay waa wada raadinaynaana keen asigana ugu dambayn gurigiisa ayuu iskaaga soo laabanaya naagta shaqaaladu guriga luu ka shaqaysa ayuuna wacaa wuxuuna weydiinaya luu guriga inay imaatay in kale naagta shaqaaladana been ayay u sheegay maadaamay luu hore ugu digtay waxayna dhahay luu guriga ayay joogtaa iyada tiyaana asigii isla markiiba hadalkeeda wuu iska aaminaa wuxuuna bilaabaa luu inoo la sheekaysto asigana wuxuu dhaha shimbirta yar adigii luu isku mid ayatiin moogtahayna horta sababtoo iyada habeenkii waala waaya adigana subaxii waaligu waayaa marka labadiina dhankaas waa ka midaysan tihiinaa dhihi karnaa moogtahayna shimbirta yar maanta luu waxay iga dalbatay shaqada shirkada inaan baro anigana waa ka ogolaada laakiinse sidaasay taa iyada shaqadeeda si fiican uma qabsanin haddana saasay taa aniga diyaar ayaa u ah ilaa had iyada inaa garab siiyo oo aan weliba shaqada kala baro sababtoo eedii adeer abaalka ii galeen aniga maahan midaa gudi karo halkaasna waxaa ka ogaanaynaa tiyaani luu iyaga inay ina adeero yihiin tiyaana markii hooyadiisa iyo aabihiisa dhinteen asiga eedadiisa iyo adeerkiisa ayaa soo koriyeen eedadaas iyo adeerkaas oo ah luu waalidiinteeda luuna wuxuu sheegayoo dhan way dhegaysanaysa hadalkiisana woo taabanaya iyada aad ayay nooga shanlaynay tiyaan sida xun ay ula dhaqmi jirta markay waalidiinteeda dhinteen iyada subax ayaana arkaynaa tiyaana guriga luu ayuu imaanaa shaqaalada ayuuna weydiinaya luu ilaa hadda inay soo kacday in kale shaqaaladana waxay dhahay uma malaynaya marwiluu saacadan inay soo kacdo ama ay soo kacayso luu ayaana kor ka soo degaysa waxaana arkaynaa luu iyada inay mar hore soo kacday isdiyaarisay tiyaana aad ayuu ugu farxaa isbeddelka weynay samaysay luu luuna shaqaalada ayay si dadban ugu mahadcelinay maadaamay xal ka qarisa tiyaan iyada inay guriga joogin luuna waxay bilaabay si daacad inay shaqadeeda u qabsato si fiican ayayna shaqadeeda ooga soo baxaysaa iyadii shaqaalayaashana shaqadooda way soo dhammaysteen weyna bixi rabeen laakiin samo ayaa meesha imaanaysa weyna u diidaysaa inay baxaan waxayna dhahay maanta lama baxaayo nashqad cusub oo dhar ayaa lasoo wadaa marka shaqa dheeraad ayaa qabanaysiin ilaa caaba ayaana shaqaynaysiin luuna way ka diiday waxayna dhahay firitaan ma shaqaynayna anigana siina ayaa u baahan nahay luuna midaan waxay u diidaysa qoraxda inay ku dhacda ayay ka cabsanaysay ee dadka dhanna arkaan iyadoo shimbir isku bedelayso moona waxay dhahay shaqaalayaasha lacag laba jibaar ayaa idin siinaya ilaa caaba haddaa shaqaysiin iyagana way ka ogolaanayaan shaqada ayayna dib ugu laabanayaan luuna iyada moo ayay gooni ula soo baxay si ay ula hadasho waxayna dhahay kaalmo adiga miilowdayna naagta shirkadan iskale aniga inaan ahay moona waxay dhahay midaas wax hore ayay ahayd waa laga tegey sida runtan hadda adiga shaqaale ayaa shirkadan ka tahay luuna iyadoo hadalkeeda dhammaysaninba qoraxda ayaa dhacayso iyadana xanuun ayaa qabanaya meeshan way iskaaga cararey moona iyada way la yaabaneed waxa ku dhacay luu iyo sababtay u carartay luuna qol shirkada ka mid ayay soo gelay shimbir ayayna isku bedelay moo ayaana qolka soo gelaysa dharkeeda oo meesha yaala ayayna arkay tiyaan ayaana meesha imaanaya iyadana waxay u sheegay hal mar luu inay weysa dharkeedana oo meeshan yaalo waxayna dhahay luu aniga waan ka shakiyey waxaan u malaynayaa shirkadan inay qorsho u imaatay ee rabta iyada shirkadan siraheeda inay bixiso luuna iyadoo shimbir ee meesha ku dhakaneed waxayna dhahay aragleysay u taalatan qof shirkadiisa siraheeda bixinay maajirin oo doqon ah tiyaana wuxuu dhaha aniga laakiinse sidaasi lama ahan waxay la tahay luu markaan inay rabta iyada inay isbedesho midaasna haddee samaysa aniga shirkadeeda waan ku wareejinayaa moon iyada kama helaysa tiyaan hadalkiisa laakiinse maxaan agal aniga luu saayid ayay uga helaysa hadalkiisa moon iyada meesha way iskaaga tegi tiyaana luu iyadoo shimbir ayuu meesha ku arkaa woona soo qaadanaya wuxuuna dhaha shimbirtii yareeday waay jeclaataa u malaynaa beryaan meel walba way la joogtaa luun iyada siduu u garab taagan yaha mar walba ayay uga mahad celinaysay laakiinse maxay kugu taalaay tiyaan asiga hadalkeeda ma fahmay maadaamay
shimbir tahay. Tiyaana jaakada hoosteeda ayuu gelinayaa maadaama shirkadan shimbir dhan laga ogoleen si aysan dadku arkin ee dhibaato u soo gaarsiinin iyada. Maalinta kale ayaana arkaynaa Luna Tiyaana ayay u sheegaysaa shaqada tababar ahaan ugu diro dhan inay ka soo baxday iyada. Waxayna dhaheen Tiyaana aniga waxaan u baahanahay inay dalacsiisid sababtoo aniga waan mutaysta sooma ahane. Moo meesha taagneed iyada waxay dhaheen Tiyaan ma kula tahay in adiga Luu shaqa walba sida laga rabay inay uga soo baxday. Tiyaana asigu soo baxaya wuxuuna bilaabayaa shaqadeeda dhan qaabkay u qabatay inuu hubiyo. Shaqaalaha shirkada dhan Tiyaan waxay u sheegayaan Luu shaqadeeda si fiican inaysan u qabsanin ee dhar kalar ku daatay macaamiisha dhan ka gaday. halkaasna shirkada macaamiil fara badan ay ku weysay Luu darteeda. Luuna waxay dhaheen Tiyaan been ayay iga sheegayaan iyaga aniga dhar nadiif ayaan macaamiisha ka gaday. waana kaa huwa midaas. kadibna soo boodadii xumeeda soo dhex galaysa waxayna dhaheen beentiis kada shaqaalaha dhan ayaa ku sheegayin waxyaabaha sameysay Luu. si beeno qayaano leh ayaa rabtay Soomaali in lagugu dalacsiyo laakiin midaas kuma suurtagelaysa intaan aniga joogo. mar walbana qayaanadaada sidaan leh u kashifaaya aniga. Luuna waxay dhaheen aniga qayaano leeymihi. adigana waxa ogeyn kuma hadli kartid afkaadeeda buu yeelayaan ku dhahay. Tiyaan hadalkeeda ma aaminaya asiga maadaama shaqaalaha dhan arrintii iyada ku cadeeyeen. waxaana dhahay Luu aniga waxaan ku maleynaa inay isbedeshay laakiin si inay isbedeshay iska dhaafay adiga qayaanuley ayaaba ku soo baxday. waxaana dhahay shirkadan dambe kuguma arki kari Luu meeshan waa iskaaga tagaa asiga waxa naqsan. Luuna waxay dareemay waxyaabahan oo dhan moo inay ka dambeysay. waxayna go'aansanay Tiyaan inay u cadeysay iyada wax qalad inaysan lahayn. musqusha ayeen iimaanay waxayna qorsheynaysaa moo inay daba gashay iyada laakiin qoraxda ayaa ku dhacaysa waxaana la gaaray waqtigii shimbirtii isku bedeli lahayd. isla markiina iyada shimbir ayay isku bedelay. waxayna dhahay xal kale malaanu soo yeelay daba gala moodaas. moona xafiiska kaamirisiisiida shirkada ayay soo galay. Luuna iyada way daba socotay meesha ayayna joogtay iyadoo shimbir ah. moona gabar gacan yaradeeda ah ayay meesha ku wada kulmayaan. waxayna ka wada sheekaysanayeen sidii Luu qorshaha ugu dhigeen. iyagana waxay rabeen kaamirisiisiida inay ka tirtiraan markay dharka kalarka ku shubaayeen. Luuna iyada way u cadaaneen waxaan oo dhan moo inay samaysay. waxayna dhahay sideen uga celiyaan aniga fiidiyowga inay tirtiraan. Luuna iyada fikrad raadinaysa meesha Tiyaan ayaa imaanayo. waxaana dhahay moo meeshan maxaa ka samaynaysiin adinka. moona waxay dhahay shaqa yar ayaan xalinoonaa wax yarna sug. Tiyaan gudaha maba soo galay meesha ayuuna iskaaga sugaya asiga doqonnimadiisa. Luuna waxay dhahay Tiyaan gudaha ma horu soo gashidna saa u aragtay meeshan wax lagu haayo. wax xun sameey waa ku baryaya aniga wax uma sameey karo. Luuna waxay bilaabay iyadoo shimbir inay weerar ku qaado maadaama Tiyaan wax uu qabi waayay. iyagana meesha way ka kala ordayaan. Tiyaan gudaha ayuu soo galaya sida uu ogaado wax qaldan. Luuna laabtooga dushiisa ayay koraysaa si uu muuqaalku u arka Tiyaan. Tiyaan uu arkaa laabtooga inay dul saaran tahay meesha ayuuna imaana. wuxuuna arkaa moo dharka macaamiisha kalar ku shubayso. asigana wuxuu ogaanay Luu waxba inaysan samaynin oo la dulmiyay. qofka waxaan oo dhan sameeyeen ee moo tahay. Tiyaan moo xafiiskiisa ayuu keenaa si uu la xisaabtamo. wuxuuna dhahay runta hadda aniga waa ogaaday. adigana Luu waa inaa ka raali gelisaa wax walba oo aa ku samaysay. iyo been walba oo dusha aa ka saarta adiga. haddii kale shirkadan kama sii shaqayn doontid adiga. Luu oo shimbiro meesha joogtan waxay dhahay saasaa kaarbaa ku dhahay Tiyaan. naagta ani afu mahay shimbiraha ilaa kaada kugu day si fiican meel u saar. maalin kale dalay soo xasuusiya ku dhahay si kale wax uma taqaanay. moona waxay dhahay lagama yaabo aniga naagtaas inay raali geliyo sababtoo iyada xataa igama raali gelinin yareanteedii waxay igu samaysay. halkaasna waxaa ka ogaanaynaa moo iyo Luu iyaga walaalo inay yihiin. Luuna labadooda markay yaraayeen aabahooda hortiisa mar walba mowqif xun ayay uga dhigi jirtay iyada. qaladaada iyada samaynin ayayna mar walba dusha ka saari jirtay. sidaas darteedana aabahooda moodan asiga woona Luu ayuuna saayid u jeclaa. moona asiga wuu diiriyay dad kale ayuuna u dhiibay si ay u koriyaan. laakiinse runta midaas ma ahayn odayga weligiisaba gabdhihiisa asiga ayaa kala jeclaa. Luu ayuuna weligiisa si saayid u jeclaa. moona qalad ayay ka fahansan tahay walaasheeda Luu maadaama ay u malaysay iyada inay ku dirtay aabahooda. moona meesha way iskaaga tegay iyadoo xanaaqsan. Luuna meel keligeeda iska imaanay waxaana dhahay waxa carruurnimo u samey jir ma igu nacdayna abaayo. micnaa waxay ka hadlaysaa qaladaadka beenta ee dush ka saari jirtay walaasheeda markay yaraayeen. waxaana halkaas ka ogaanaynaa Luu waxaas oo dhan carruurnimo leh inay ka ahaayeen. moona sabirka aabaheeda ayay ku dulooynaysa waxayna dhahay maxaa sidaan oo dhan igu nacda aniga aabo. waxayna aaminsanayd iyada Luu maadaama aabaheeda ku diri jirtay sidaas darteed inuu u nacay. waana sababtay walaasheeda Luu u nacda moo ay mar walbana cadowga ugu tahay. Tiyaana asiga moo u imaana si uu u dejiyo xaaladeeda. asigana lama yaabin walaali inay yihiin sababtoo hore ayuu ogaa walaali inay yihiin. Luuna irid ayay taagneyd warkooda ayayna dhegaysanaysa iyada. iyadan waxay arkay Tiyaani moo inay isku dhow yihiin. midaas niyada xoogoo kama helaysa sababtan iyada xataa ma ogeen. subax ayaana arkaynaa moo iyo Tiyaana waxay imaanayaan guriga Luu si ay moo uga raaligelisa Luu iyada beenta ee dusha ka saartay. Tiyaana ayaana kusoo qanciyay midaas. Luuna iyada meeshay fadhisa moona way ka raaligelinay waxyaabaha ay ku samaysay. Luuna iyada way ka diidaysaa raaligelinta. waxayna dhahay maadaama shala shaqaalaha hortooda been dusha iiga saarto waa inaa shaqaalaha hortooda igu raaligelisaa. moona midaas way ka diiday waxayna leedahay lagama yaabo aniga shaqaalaha hortooda inaa kugu raaligeliyo meeshan waa iskaaga tagay. Tiyaana waxay dhahay Luu adiga moo iska cafi aniga ayaa dhankeeda kaa raaligelinayo. Luuna waxay dhahay iyadoo kaliya qalad igama gelin adiga xataa shalay waa ay aamini weysay. marka sidaas darteed haddaa u baahan tahay aniga raaligelintaada inaa aqbalo waxa kaa dalbada waa inaa ii samaysaa. meel masaaj ayayna keenay sida loogu masaajeeyo laakiinse kaas masaaj ma ahayn dhabar jibis ayuu ahaa. Tiyaana xanuun ayuu ku dareemaya asiga masaajka laakiinse Luu weyba ku haysatay. iyadana waxay dhahay Tiyaan run ahaanta adiga wiil qurux badan ayaa tahay sidoo kale lacagna waa leedahay sababa ilaa hadda adiga single u tahayne. Tiyaan waxay dhahay goormay guursanaa horta dhabaraa ku istaaga bi iima reebine. fiir walaashii macan horta waa guursanaa waana iskalkicinaa laakiin hadda maano had shaqooyin far badan ay igu xiriiraan. teeda kale adina waa iisii dheertaho mucjise marka intee ku arkaan guuri waxaas
laakiin waa iska dadaalaa dhib malaato ay rabta ma waynay laakiinse tiyaan asiga beentiisa ayay ahayd mida sababtoo yaraantiisii ilaa hadda iyada ayuu jeclaa sidaas darteed ayayna ahayd sababtoo ilaa hadda asiga xiriir jecel u sameey waayey mo ayaan arkaynaa iyadan wiil hongan laa ee maqaayad la fadhisay hongan asiga wuxuu ahaa wiil hadda kahor shir la ahaa jira shirkadda luu laakiinse khayaano oo shirkadii ku sameeyey ayaa hadda kahor asiga tiyaan uga buriyey shirkadda wuxuuna rabaa asiga tiyaan inuu ka argoosto maadaama hadda kahor shirkadii laga buriyey moona hong wuxuu u sheegay iyada inay rabto luu inay ka argoosato hongan wuxuu dhaha adigan waxaa igu caabinay aniga tiyaan inaa ka argoosto labadoodana si cadowtinimo leh ayay meeshaas iskula saaxiibayaan waxaana arkaynaa luu iyo tiyaan xataa maqaayadan inay joogaan luuna tiyaan wixii ku xujaysanay cuntada ay jeceshahay inuu u dalba iyada u sheegin tiyaanna asiga waa u dalbaa luuna waa la yaabay tiyaan siduu ku ogaado cuntada iyada jeceshahay iyada u sheegin maalintii xigtana tiyaan luu wuxuu u sheegaa inuu dalacsiiyey hadda kadibna iyada ay ka shaqayn doonto qaybta adeega macaamiisha tiyaanna wuxuu u sheegaa qaybtan inay tahay qaybta ugu adag ee laga shaqeeyo shirkadan luuna waxay dhahay aniga wax walba waa qaban karaa agtaydan way ka fududiin wax igu adag ma jiraan wax yar kadib ayaana arkaynaa luuna markay shaqada bilowday iyada qayla ayaa kasoo hartay waxayna ku qaylinaysaa aad ayay u adag tahay shaqadan haliga bedela aniga luuna isla markii uu meesha way iskaaga tegaysaa maadaama qoraxda dhici rabto waqtigeeda la gaari rabo tiyaan ayaana imaanaya asiguu raadinaya waxaana loo sheegayaa iyadoo degdegsan inay baxday asigana waa la yaabay maadaama ay baxday iyadoo shaqadeeda dhammaystiranin luuna waxay rabtay si degdeg inay guriga ku tagto laakiinse honga ayaa wadada uga hor imaanayo asigana wuxuu dhahay luu inaa wada hadalna ayaa u baahanahay luuna waxay arkay waqtigiina ku dhamaanaya asigana oo gaari wata waxaana dhahay gurigeyga ayaa ku wada hadlaynaana keen hongana waa ka ogolaanaya wuxuuna dhahayaana keen waxaana arkaynaa tiyaan asiga wax walbo meesha ka dhacay kor inuu ka arkayay hongana asiga guriga ayuu keenaya luu iyadan xanuun ayay hay waxaana dhahay beri ayaa wada hadlaynaa iska bax hongana oo dareema xanuun inuu hay wuxuuna dhahay isbitaal ma ku geeyaan marweliw iyadan waxay dhahay looma baahna calooshu keliya ayay xanuunas qolka ayayna kusii orde isla markiina markay qolka soo gashay shimbir ayay isku bedeli xoogow kadibna tiyaan ayaa gurigeeda imaanaya shaqaalada ayuuna weydiinaya luu inay imaatay in kale shaqaaladan waxay dhahay way imaata qolkeeda ayayna ku jirtaa tiyaanna wuxuu dhahay inaa la hadla ayaa u baahanaya iyada iigu wac shaqaaladan luu qolkeeda ayay kasoo fiirinay weyna soo waynaysaa iyada shaqaaladan waxay u sheegay luu qolkeeda inaysan ku jirin iyada tiyaanna wuxuu dhahay intee aadi kartaan iyada wuxuuna ku fikirayay hong inay la joogtay meel isku raaceen wuxuuna dhahay luu iyada ma waalan tahay in qof walba wadada ku aragtay gaarigiis ma iska raaceen ninkaas wejiga u qarsan may og tahayna iyada meeshana waa iskaaga taga asiga luuna iyadoo shimbir ayay meesha joogtay wax walboo tiyaan dhahayan iyada way maqlaysay waxayna dhahay kaali indhahayga maxaa ku arkayna aniga tiyaan honga ma igama seerooyaana asiga subax ayaana arkaynaa honga ayaan u imaanaya luu sidoo arrimuhu raba oogala hadlo luuna waxay dhahay iga raalnoq aniga hadda waqti maha shaqo ayaan u socdaa hongan wuxuu dhaha dhib mala aniga ayaa gaarigii kugu sii qaadaya wadada ayaanu kusii wada hadlaynaa luuna iyadoo ka ogolaa rabta tiyaan ayaa meesha imaanayo wuxuuna dhahay luu aniga ayaa i raacaysaa adiga gacanta ayuuna xoog ooga qabanaa si oo u wato luuna way ku xanaaqay waxayna dhahay anigii ma khasbi kartid qofkaa raba ayaa raacaya honga ayayna dooranaysaa inay raacda iyada luuna shirkada ayay imaanay waxayna arkay dadka shirkada jooga dhan si la yaable inay usoo fiirinayaan iyada waxayna arkay war been in laga soo faafiyey iyada oona loo sheegoy shaqaalaha shirkadan jooga dhan iyada inay tahay qofka iskale shirkadan sababtoo shaqaalaha iyaga hore maysan u ogin qofka shirkadan iskale luu inay tahay akhbaartan waxay ahayd luu inay kormeerayso shaqaalaha shirkadan ka shaqeeyaan iyadoo iska dhigaysa shaqaale iyaga la mid oo shirkada kala shaqeeyo si ay u buriso shaqaalihii qalad yar xataa galo warkan beentana moo ayaa kasoo faafisay iyadan ilaa hadda dhibaato ayay la daba taagan tahay luu shaqaalaha dhan way soo aruursadeen luu ayayna u imaadeen iyagoo hadiyayaal u wadaan waxayna ka baryaayeen inay burinin iyaga qalad yar oo ka dhacay awgiis moona qorshaheeda wuxuu ahaa shaqaalaha inay luu ku dirtay shirkada qalalaasa ka kiciyaan laakiinse midaas bedelkeeda waxay sameeyeen wax walbay luu ku raaligeli karaan si aysan shirkadan ooga burinin iyaga moona gacan yaradeeda ayaa fiideo kool ka tusaysa wax meesha ka dhacooy oo dhan iyadana waxay ogaanayeen inay fashilantay bis tahay luuna shaqaalaha waxay u sheegay intaynaysan u joogin iyaga inay qalad ku raadisay buriso laakiinse ay u joogtay inay barato shaqada waxay tahay ee shirkadeeda la wareegto shaqaalaha dhanna iyagu way ku qancayaan hadalka luu luuna waxay dhahay aad ayaa u mahadsantihiin maadaama adinkoo wax qalalaasaa kicinin anigaa si toos iigu imaateen sidaas darteedana mushaarkiina laba jibaar ayaan idinkaaga dhigay tiyaanna meesha ayuu joogay wax walba sidii luu u xalisana wuu ku faanayay asiga moona xafiiska ayay ugu imaanay tiyaani luu waxayna dhahay luu adiga cidaa u laba jibaari karti ma jirto mushaarkiisa luuna waxay dhahay adiga arrintan waxba kaama gelin shirkadan aniga ayaa iskale qofkaa raba ayaa lacagta u laba jibaaraya teeda kale waa ku ogaay aniga qofka akhbaartan qaldan iga soo faafiyey waa adigoo keliya moona waxay dhahay waa saxantahay aniga ayaa kaa soo faafiyey akhbaartan sababtoo midaas way u qalanta adiga tiyaan ayaana soo dhexgalay labadooda wuxuuna dhahay isdejiya adinka gabdho walaala ayaa tihiin isku day inay isfahantiin sidaan idinma fiicno moona waxay dhahay adigu waa u adkaysan kartaa naagtan dhaqdhaqdeeda sababtoo ilaa yaraantaada ayaa jecleed laakiinse anigu uma adkaysan kari meeshan way iskaaga tageen tiyaanna maadaama sirtiisa la fashiliyey waa isku xishoona asiga wax hadalana ma dhahay hadalka ayaa ku dhagaayo luuna xafiiskeeda imaanay waxayna ka fikiraysa hadalkee moo dhahday waxayna la yaabaneed tiyaan jaceylkoo sanadahan dhan u qaba sidii u dareemi weysay iyada tiyaan ayaan u imaanaya luuna waxay bilaabay inay ismashquuliso asigana wuxuu raba arrimo shaqada ku saabsan inuu kala hadlo luuna intay isdhaysa tiyaan ka baxsi biyo ayay si qaldan iskugu shubay tiyaanna wuxuu bilaabayaa inuu usoo dhawaado biyaha ka tirtiro tiyaanna wuxuu raba inuu u sheegay inay waqti dambe tahay oo raba asiga gurigeedii inuu geeyo laakiinse luu waxay u malaynay jaceylkiisina u qiran raba dhegaha ayayna ka qabsanay waxayna dhahay walaalow aniga wax jeceylaha ii qiranin hadda jecel diyaar
shumiyey meeshana way iskaaga carareen. Luuna gurigeeda ayay imaanaya iyadoo shimbir ah. Waxayna dhahay 3 bilood liisii hal bilow kaliya ayaa iiga harsan. Ilaa haddana wiil aniga ay jeclaado oo diyaar u ah inuu shumiyo aniga ma arkin. Luuna maskaxdeeda waxaa kusoo laalaabanaya Tiana oo kaliya. Laakiinse Luu diyaar uma ahayn iyada jaceylkiisa inay ka faa'iidaysatay shimbirnimada ooga baxdo. Iyadana sida caadada ahayd Tiana ay gurigiisa ugu imaanaya iyadoo shimbir ah. Waxayna arkay Tiana asigoo taleefan ku hadlaayo shaqaalada gurigeeda ka wareysanaya iyada inay joogtay in kale. Shaqaaladana waxay u sheegay Luu guriga inaysan joogin. Tiana asiga wuxuu ku fikiray Hong inay la joogto. beryahan asii ka helowso. Wuxuuna dhaha Hong oo kaliya ayay la joogtaa waan huwa aniga meel kale ma jirto. Luuna hadalkiisa way maqlay waxaana dhahay fikradan qaldama iga aaminsan tahayna Tiana. Aniga gabar sidaas fudud lagu heli kara miyaan kula ahayni. Tiana iyadoo shimbir oo meesha ku arkaa woona soo qaadaa. Wuxuuna dhaha shimbirtii yareed beryahan oo dhan kuma arkin intee ka baxdayna adiga. Kaala uur ma lahayd masoo dhalaysayni. Luuna waxay dhahay anigoo shimbir xataa qaladka saas weyn ma iga aaminsan tahayni. Kaala intee uurka ka keenayaan aniga cunug yar ahe. Tiana wuxuu dhaha run ahaan shimbirtii yareed si saayid ayaan kuugu xiisay. Asigana madaxa ayuu ka shuminaya. Luuna iyada dareenkeeda way xakameyn lahayd marka sii dambaysana Tiana way sii jeclaanaysay. Maalinta kalena Luu Tiana ayaa soo baxay waxayna dhahay maanta adiga ayaa igeynaysa xafiiska. Tiana asiga oo ka ogolaana laakiin Hong ayaa ka soo hormaraayo. Luu ayuuna wax u keenaya Luuna iyadu wax way ka qaadanay weyn u mahad celinaysaa. Tiana ayaana meeshii imaanaya labadoodana way isku arkaya midaasna kama helaya asiga. Luuna waxay dhahay keen Tiana waa israacayna. Tiana wuxuu dhahay garaan la quluu labadeena isma raaci karno. Sababtoo waan buu jeedaa dadka ku jecelaya aniga mar walba iga soo horeeyaan oo iga badan. Adigana kuwaas ayaa qiimaysa sida filaayo. Hong ayaana labadooda soo dhex galay wuxuuna dhahay dib mala Tiana aniga xataa Luu waa soo wadi karaa waa iska bixi kartaa adiga. Tiana asiga waxa naqsanaya meesha iskaaga tagaa. Luuna shirkada ayay ka daba imaanay Tiana. Waxayna dhahay kaala horta ma fahmin maxaa ku haysataan adiga Hong. Soo moogidna asiga inuu yahay wiilka shirkada nala tartamuus iska leh. Maxaa noogu diraysaan waalihi shii karnaa ganacsi weyn oo na dhaxmari karaa. Midaasna aniga faa'iido weyn ayay noo tahay. Luuna iyada way ogeed Hong inuu shirkadan hore u qayaamay. Laakiin waxay u maleynaysaa waxyaabaha soo dhan inuu ka fiicnaada asiga. Tiana wuxuu dhahay waa ogaa aniga ninkan shirkada naga soo horjeedin inuu leeyahay. Laakiin aniga waxay la tahay qorshiin uu ka dimacsan yahay beebeenku umada socda asiga. Markiina iskaaga hartay ayaa ku ron. Luuna waxay dhahay aniga dabaal miyi Tiana. Waa looga qofka la soconaya qofka kale. Midaasna aniga adiga ima sheegaysid. Tiana gacan yarihiisa ayaana soo dhex galay labadooda. Wuxuuna dhahay isdij mudana Tiana maseer badan looma baahno. Marwelu adigu kaliya ay ku jeceshay Hong kama qaadanaya asiga waan huba aniga. Ya uwiya waayaday. Iyagan hal mar ay ku soo wadajeysanayeen naftiisana meeshaas ayuu ku weerabay. Asigana meesha waa iskaaga carraa naftiisuna badbaadsana inta la cunin. Tiana wuxuu dhahay hal su'aal ayaan ku weydiinaya Luu. Horta habeenkii adiga maxaa lagu waayaani? Mar walba waa gurigaaga taga adiga ma joogtid. Luuna waxay dhahay aniga hadda arintaas kuma sheegi karo Tiana way igu adagtahay iga raali noqo. Tiana wuxuu dhahay dhib ma laha hadday sidaas waqtiga soo go'aansatay waa ii sheegi kartaa. Asigana wuxuu sheegaa marka liinoo dalacsiyeena ka shaqeyn doonto qaybta dhar soo saarista. Luuna aad ayay ugu farxaysaa sababtoo horiyadeeda ayay ahayd meeshaas inay ka shaqeyso. Laakiin Tiana wuxuu sheegayaa qaybtaas asiga hogaankeedii inuu haynin ee maamulo ka tahay moo. Luuna kuma farxaysa markay midaas ogaato. Sababtoo wixii ogeed moo iyada si saayidin u neceb tahay. Inuu ogolaanayna meeshaas sidee rabtay inay uga shaqeysato. Tiana qaybta dhar soo saarista ayuu keenaya Luu. Shaqaalaha qaybtaas jooga dhan wuxuu sheegayaa Luu shaqaale cusub inay tahay soo dhaweeyaan. Moo ayaana meeshii imaanaysa iyadana Luu waxay u diray shaqo mid ugu hooseysa oo ugu madax xanuunka badneed. Luuna shaqadaas weydiidaysa iyada. Waxayna dhahay aniga gabar wax baratay ay shaqooyinka noocan oo kale liiguma talagelin. Moona waxay dhahay shaqaatan ahayn kuma hay aniga hadeeribina waa iska bixi kartaa. Luuna waxay dhahay aniga waxa baxay ma jirto. Waxaan ku tusaa shaqadan xunta buubuuninaysa isla beribiina soo afjaro iyadoo diyaar ah ku keeno. wax yar kadib ayaan arkaynaa Luuna iyadu way qaylinaysa shaqada dhan way qabaleed. waxayna rabtay meesha dhan inay iskaaga tagto laakiin Tiana ayaa u imaanayo. asigana wuu dhiirigelina wuxuuna dhahay shaqooyin midaan ka adag ayaa ka soo gudubtay Luu. tanna waxba kulama waa ka gudbi kartaa waa huwa aniga. isla markiina waxaa ku soo dhacaysa fikrad khatar ah oo shaqada ay ku xaliso. maalintii xigtana xafiiska ayaa la iskugu imaanaa. waxaan ogaanaynaa Luu shaqada ma u dirtay sidii laga rabina uga soo baxday. shaqaalaha dhan iyada way u sacbinayaan. moona afay ku hadashay meesha muu yaalin hambali ayaana dhahay meeshan way iskaaga tagaysaa. qoraxda ayaana dhaxaysa habeenkii oo dhan Luu waxay iska celcelinaysa iyadoo shimbira guriga Tiana inay aado. iyadana maadaama 3 bilood ku kordhamaanaysa waxay rabtay inay hesho wiil si dhab u jecel oo iyada shumiyo. laakiin aan Tiana ahayn. Luuna mar walba ay fikirtay iyada maskaxdeeda Tiana kaliya ayaa ku soo dhacayay. waxayna ku fikiray guriga Tiana inay iska aadisay xaaladiisa iskaaga soo aragta haddana way iska celinay. iyadana ugu dambeyn way is celin weynaysaa gurigiisa ayayna imaanay. Tiana dhulka ayuu ku arkaa woona soo qaada asiga. wuxuuna dhahay shimbirtii reeday waxaan ka cabsanay Luu wax walba qalbigay ku jiro hadaa u sheegtay inay iga tagtay iyada. Luuna waxay dhahay maxaa kaaga tagayaan Tiana aniga sidaas oo dhan uma xumi. runta hadaa ku sheeg aniga waa ku jeclaaday naftaydan waa ka xakamay waa inay ku jeclaato. Tiana laabta ayuu gelinaya asiga. Luuna waxay dhahay fiicnaalaheeda weligeyga inaa shimbir ahaado. sababtoo maalin walba sidaan ayaa kugu imaan lahaa laabtaadana kama bixi lahayn.
subax ayaan arkaynaa Tiana dadka dhan wuxuu sheegaya Luu tababarkeeda hadi kadib inuu u dhamaaday hadi kadibna shirkadeeda uu ku wareejiyay maamulaha ugu sareeyana ee iyada tahay Luuna bukis ayaa hadiye ahaan loogu soo dhiibaya iyadoo meesha fadhiso bukiskana markay furto shimbiro badan ayaa ka soo baxayaan Luuna way ka cabsanay Tiana ayaana laabti gelinayo waxaan ogaanaynaa moo inay waxaan oo dhan ka dambeysay waxayna rabtay sida hore oo kale Luu dadka hortooda inay ku xeebayso eena dhahaan qof shimbir ka cabsanay miya aniga shirkad noo maamulayo Luuna waxay dhahay bas waa hadi kadib Tiana aniga waa isbedelay mana laga yaabo aniga shimbiro inaan ka cabsado iyadii Tiana gooni ay iskula soo baxayaan si ay iskula shaqeeyaan Tiana wuxuu dhahay aad ayaa ugu faraxsanay Luu sida quruxda badan ay isku bedeshay Luuna waxay dhahay bal aniga qaad Tiana anigii shirkadeeda inaan naga tageenin Tiana aniga midaan dadka hortooda waa kuugu sheegi waayay laakiin hadda ayaa rabaa inaan kuu sheego runta waxay tahay aniga waxaa rabaa shirkadeeda adiga le inaan sidaan iigu sii haysid bal aniga qaad Tiana inaan sidaan iigu haynaysid shirkadeeda adiga haniga diidin waa ku baryaa codsi ayay iga tahay Tiana asiga qaawo uga diidayo wayna wuxuuna dhaawaa balan aniga ayaa ku haynayay Luu asigan wuxuu bilaabay Luu inuu dhibo feel ay haysa ayuuna ka qaadaya Luuna kama yeelaysa ka qaadayeen isla heed labadoodana way isku soo dhawaanayaan Luuna way iska fogeynaysaa kursigeeda ayayna ku soo laabanay waxayna ka cabsanaysaa dareenka dhabta oo qabi inay ka faa'iideysatay shimbirnimada ooga baxday iyada Tiana wuxuu dhahay iga raan Luu hadaa ku dhib aniga waa iska baxaya Luuna waxay dhahay may aniga wax dhibaato iguma haysi waa iska joogi kartaa sida caadada aheedna qoraxda ayaa dhacaysa Luuna xanuun ayaa qabanaya iyada meeshan way iskaaga carareen Tiana wuxuu dhahay mar walba maxay caloosha sidaan ugu xanuuntaay oo oradaan iyada dhanka kalena waxaa arkaynaa moo iyadana aad ay uga xumeed Luu jagada weyn ee heshay Hong ayayna waxayna dhahay Luu maanta maamula ayaa laga dhigay akhbaartaas uu soo gaarto Soomahan adiga Hongna asiga wuxuu sheegaya midaas inuu og yahay moona waxay dhahay Hong waxaa jirta nashqado cusub ee Luu soo saartay waxayna dhahay aniga nashqadahaas ayaan Luu ka soo xadaya waana ku keenaya marka ku keenan aniga waxaa rabaa shirkadaada inay soo saarto kale inay ka dhigtid Hongna asiga midaas oo ka ogolaanaya maalinta xigtayna Luu iyadoo xanaaqsanayay Tiyan xafiiskiisa ugu iimaanay waxayna u sheegay nashqadaheeda cusub in la xado shirkada Hong laga gaday Hongna uu ka dhigay nashqadaha shirkadiisa inay soo saarto kale Tiyan wuxuu dhahay macquul ma midaas aniga ayaa arintan dabagalay man laga yaabo nashqadahaada in laga qaato Luu habeenkii markii la gaarayna Luu iyadoo shimbir ayay Hong shirkadiisa iimaanaysa iyadana laabtoogiisa ayay dul iimaanay waxayna arkay nashqadaheeda guurdhow dhar ahaan inuu soo saari rabo Hongna asiga xafiiskiisa ayuu joogo hurdaayana qabanaysay iridaayona dhaxda ka soo xiranaya Luuna way soo orday waxayna dhahay kaal maxaan ugu xirtay irida hadda aniga intee ka baxayaan waa la yaabay Hongna asiga shaatiga ayuu iska siibaya kursi meesha yaalayona seexana Luuna waxay ku qasbanaanay habeenkaas oo dhan iyadii inay joogto Hong xafiiskiisa subax ayaana arkaynaa Luuna way soo kacay iyadana meesha ayay ku hurdo dhar la'aan ayayna ahayd iyadana waxay samaysay wayni Hong shaatigiisa ayayna meesha ku arkaysaa wayna xiranay asigan waa soo kacay shaatigiisa ayuuna meesha ka weynaa wuxuuna dareemaa xafiiskiina oo qof kale kula jiro wuxuuna bilaabay xafiiskiisa inuu baaro isla markiina Luu oo helaa meesha ayuuna ka soo bixinaya iyagana xoogoo way isku soo dhawaanayaan Tiana ayaana meesha imaanayo asigan markuu isku arka qalad ayuu ka fahmaa meeshan waa iskaaga tagaya Tiana asig meeshan wuxuu u maad Hong inuu kala hadla arrimaha nashqadaha Luu laga xaday Luuna isla markiiba Tiana iyada shirkada ayay ka daba imaanay Luuna waxay dhahay aamin Tiana aniga halkaas waxa u tagay nashqadii inay soo cishto kaliya Tiana waxay dhahay waayay ninkaas shaatigiisa maxaa u xirneedna adiga sidaas oo dhan labadiina maxay iskugu dhabeedin Luuna way u dhahay rabtidii Hong inuu waxba ka dhixin laakiin Tiana meesha waa iskaaga taga hadalkeedii inuu dhageystana diyaar uma ahayn Luuna habeenkii xigmo ayay dabagalay maadaama ay ka shakisneed waxayna arkay mooy gacan yaradeeda oo nashqadeeda meel ku qarinayaan waxayna dhahay tan waa nashqadeeda originalka waxaan u maleynayaa moo ilaa hadda Hong inaysan u geenin nashqadeeda originalka ahayd subaxina Luu Tiana ayaa soo baday xafiiska moo ayayna keenaysaa waxayna dhahay Tiana inta ay ku jiraan nashqadahayga originalka ah aniga moona waa isku naxay waxayna bilaabay inay inkirto waxyaabaha samayso dhan waxayna dhahay Luu adiga nashqadahaada maxay ka samaynayaan aniga xafiiskayga Luuna gacan yaraha Tiana ayaa dhahay soo bixi nashqadaha Tiana gacan yarihiisana waa soo bixina sida u wadan Tiana iyo gacanta u gelina Tiana oo arkaa wuxuuna dhahay midaan maxaa u samaysayna adiga moona waxay dhahay aniga waxaa rabay nashqadaha markale way Luu in shirkada laga buriyo sababtoo ani iyada waa nicbay walaashay inay noqotan uma qalanto Tiana wuxuu dhahay adiga walaashaad xumeynaysa mar walba shirkada afka dhulku gelinaysaani moona waxay dhahay aniga doqon miyi Tiana run waa aniga nashqadaha waan xaday laakiin si ilaa heerkaas dabaal miyaan aniga shirkada dhan afka dhulku u geliyo aniga koodi waari Hong inaa sii nashqadaha laakiin se gadaal dambe waa iska dhaaf waxaana ka cabsada wax walba inay burburaan ilaa haddana nashqadaha ma siinin aniga Hong waana kana adiga ayaa gacanta ku haya indhaha maalaadahayne Tiana Luuna iyaga hadalkeeda ma aaminayaan moona meesha way iskaaga tageen Luuna keligeeda ayay shirkada banaankeeda soo fadhiisanaysaa Tiana ayaan u imaanay iyada waxaana dhahay iga raan Luu hadda ayaa fahmay sababta xafiiska Hong u tagtay adiga nashqadahaada ayaa rabtay Soomaa meeshaas inaad ka soo qaadatid laakiin aniga waa ku aamini waa ka raali gelinaya midaas Luuna waxay dhahay dhibaato ma laha qof walba booskaada ku jira hadaba waxaas arki lahaa anigii ma rumaysan lahayn Tiana wuxuu dhahay qalad hay fahmin laakiin hal mid ayaa isweydiinaya ilaa hadda maalintaas maxaa Hong shaatigiisa u xirneedna adiga Luuna waxay dhahay arintaas hadda way igu adagtahay inaa kuu sheego Tiana mar kale ayaa kuu sheegaya Tiana wuxuu dhahay dhib male Luu hadal walba xaqiiqa afkaaga ayaan ka sugaya Luuna waxay dhahay Tiana aniga wuu jira wiil jeclay laakiin Hong ma ahan Tiana wuxuu dhahay yaaba in wiilkaas talow Luuna waxay dhahay aniga hadda kuma sheegi karo Tiana wiilkiisa sheegaysa inta jecel kala hormarin
ba asiga kala hormaraayo wuxuuna dhaa waa ku jeclay Luu aniga laakiin si uu sheegay wiilkaas isla asiga le inuu yahay Luuna iyada waxa uma dhahays xishood ayaana ka soo haraayo Tiyan uu fahmay wiilka ka hadlaysa asiga inuu yahay laabta ayuu nigilinaya Luuna waxa dhahay aniga xataa waa ku jeclay Tiyan isla markiina qoraxda ayaa dhacaysa Luuna xanuunaya qabanay meeshan way iskaaga carareen iyadana shirkada ay soo galay moo ayaana arkayso iyadana way soo dabagalay waxayna arkay Luu oo shimbir isku bedelayso moona weynay la dhacaysa aadayeen ugu xumaanay walaasheeda xaaladda haysato maalinta xigtana moo Luu gurigeeda ay ugu iimaanay waxayna dhahay ugu dambeyn aniga waa ogaada sirta qarinaysay adiga shimbir ayaa mar walba isku bedeshaa soo maahan Luu sidaas darteed ayaa marmarka qaar xataa lagu waaya Luuna waa isku xawaan ku inkiraysaa waxayna dhahay maxaa ku hadlaysaana moo iyadana waxay dhahay Luu ha isku dayin runtii inay inkirtid aniga shimbirina tay dadka dhan ayaa u sheegaya haday isku daydiina shirkadiiga burisid Luuna waxay dhahay haa waa saxanta aniga shimbir ayaa dadka dhan waa u sheegi kartaa sababta aniga xujada ugu dambeysay liider waa ka soo bixi waayay toonbari kadibna aniga shimbir toos ayaan isku bedelaya moona xogo iyadana xariis ayaa soo galayso waxayna dhahay isdiji Luu aniga cida ku sheegay ma jirto Luuna waxay dhahay aniga waxba qof wanaagsan ha iska kay dhigin adiga waxa taa qofka aniga nashqadeeda ka iibiyo Hong moona waxay dhahay aniga hore ayaa ku sheegay nashqadaada inaanan ka iibinin Hong ilaa heerkaasna aniga ma jecli inaan ku dhibaateeyo Luuna waxay dhahay laakiin si Gmail-kaaga ayaa looga soo diray Hong nashqadahayga anigana midaas indhahayga ayaan ku soo arkay moona iyada isla markii way fahmaysaa qof ka daba shaqeeyo qofka uu yahay labadoodana shirkada ayay imaanayaan moona waxay dhahay gacan yaradeeda adiga waa Soomaa qofka Luu nashqadeeda u diray Hong sababtoo adiga kaliya ayaa Gmail-kay wax ka diri kartay laptop-gay password-kiisana waa taqaana adiga gacan yaradan ma inkirays waxayna dhahay haa aniga ayaa Luu nashqadeeda u diray mudana Hong sababtoo maruumo aniga marka horeba adiga daacad kuma ahayn waxaan ahaa jaajuus oo soo dirsada mudana Hong si uu ugu soo gudbiyay macluumaadka shirkadan oo dhan haddana aniga mudana Hong wax walba shirkadan kara waa u sameeyay cid wax ka bedeli kartana ma jirto arrintaas haddana aniga shirkadiina xunta waaba iskaaga tagaaya mooniyada hadalka ma sii dhageysanaysa isla markiina askar ayaa u keenay gacan yaradan waa la xiraa halkaasna waxa ku ogaanaynaa mooyada koodii horeba Luu Tiyan inay run u sheegaysay iyada ahayn qofka nashqadaha siiyo Hong Tiyan asiga meesha ayuu taagnaa wax walbana wuu u jeeday Luuna wixii rabto walaasheed inay la heshiiso laakiin samoo way ka diiday Tiyan ayaan u imaanay labadooda wuxuuna leeyahay adinka gabdho walaala ayaa tiin waxa loo baahan yahay inay heshiisiin markaas ayaa cadow walba ka guulaysan kartiin adinka moona waxay dhahay aniga diyaar ayaa waa aniga Luu shirkadan inaan meel ka soo saarno laakiinse lagama yaabo aniga Luu si fudud inaan ku cafiyaan ula heshiiyo midaas waa inay iyada iga keensataa Luuna waxay dhahay dhib ma laha aniga ayaa ka keensanaya cafiska qoraxda ayaana dhacaysa Luuna sida caadada ahayd xanuun ayaa qabanayo iyadana meesh way iskaaga cariri rabta laakiinse Tiyan kama yeelay wuu soo qabanaya woona isku duubaya asiga moona maadaama runtoogid waxay isku dayay Tiyan inay ka xiriso Luu Tiyan wuxuu dhahay siida ma waxa raba aniga inay ogaado waxay mar walba Luu carartay iga qarisa aniga Luuna waxay dhahay hadaa ogaati waxa ka qarinayo ma sii jeclaa doontii siida Tiyan laakiinse Tiyan asiga ma sii daynay Luuna hortiisa ay shimbir iskugu bedelay Tiyan oo kana asiga markuu arka sidee noqotay wuxuuna isku dayay inuu soo qabto laakiinse Luu meesha way iskaaga biibay habeenka ayaana arkayna Tiyan asiga uu fikirayay wuxuuna la yaabanaa shimbirtu habeen walba la sheekaysi jiray Luu inay ahayd Tiyan subax Luu ay u imaanaa si uu la hadlo laakiinse Luu iyada way ka diidaysaa waxayna dhahay Tiyan aniga bahal ayaana iska kiilo xiriirna nama dhaxmari kara labadeena Tiyan wuxuu dhahay maxaa ku hadlaysaan adiga aniga ayaa kugu dadaalay si walba bini'aadanimadaada ugu soo laabi kartid laakiinse waa ku baryaa hadallada noocan oo kale haydihin adiga asigana laabta ayuu wuxuu ku gelinayaa maadaama ay diidaysa inuu soo dhawaado dhan Luuna way qaniinay waana iska kala tuuray waxayna dhahay igu filan Tiyan aniga xiriir inuu na dhaxmara diyaar u miihi waa ku baryaa meeshan iskaaga tag wajigaaga dambana hay tusinin maalmo kadib ayaana arkaynaa Luu iyo moona si wada jir ayay uga shaqaynayeen shirkada waxaana halkaas ka dareemaynaa markaan iyaga inay si toos u heshiiyeen Luuna iyada Tiyan mar walba way ka fogaanaysay mooy Luuna iyaga waxay si wada jir u qabteen bandhig lagu soo bandhigayo dharka nashqada cusub ee Luu soo saartay Hongna asiga meesha ayuu joogo bandhigayo ka soo qayb galay asigoo iska dhigaa inuu daabanayo kaliya sababtoo dad shirkado fara badan ka socda ayaa meesha jooga oo daabanayay bandhiga asigana looma diidi karin dadkaas ayaana ka mid ahaa gacan yarada jaajuusada u heed ayaana meesha joogtay iyadoo xabsiga laga soo deeyay iyadii Hongna qorshaayada macsanaayeen asigana wuu u baaqayay waxaana arkaynaa labadooda inuu kor dheer ka arkay Tiyan asigana isla markii uu soo dabagalaa wuxuuna arkay iyadoo jarjaraysa dharka nashqada cusub ee Luu soo saartay waxaana halkaas ka ogaanaynaa Hongi gacan yarada qorshahooda inuu ahaa Luu inay dadka hortooda ku ceebeeyaan dharka masrax lagu soo bandhigi rabana ay jarjaraan gacan yaradan iyada waxay arkay Tiyan inuu arko meeshan way iskaaga carareen Tiyan uu ka soo daba cararaa dadka hortooda ayuu ku qabanaya wuxuuna dhahaa naagtan nashqada cusub ee dharkeena ay jarjaraysa aniga ayaana ku qabtay gacan yaradan way xanaaqay manqasayna soo baxsanay Tiyan ayayna gili rabtay iyada laakiin si Luu ayaa ka soo gaaraysa wayna isku dhigaysaa meesha ayayna ku dhaawacmay iyada Hongna asigu uu baxsirba security shirkada ayaana qabanayaan Luuna iyada gurigeeda ayaa la keenaya waana la daaweynaa dhakhtarkan wuxuu dhahaa waa dhaawac iska yar weesar ma tookali iyada wax sidaas ma gaarin goordhowna way caafimaadaysaa dadka dhanna meesha way iskaaga tagayeen Luu iyo Tiyan ayaana qolka iskugu soo harayaan Luuna iyadoo dhaawac ay shimbir isku bedeli rabtay midaasna halis ayay ku ahaadiyada Tiyan wuxuu sameeyay wayna woona shumina ugu dambeeyna shardiga saddexaad uu buuxsamaa Luu markaan iyada shimbirnimada way ka baxay bini'aadan toos ayayna noqonaysaa 2 sano kadib ayaana arkaynaa Luu iyo Tiyan iyaga way isguursadeen iyadana uur ayay u lahayd farxad ayayna ku wada
noolaayeen labadooda. Filinkeennana meeshaas ayuu ku dhammaadaa asxaabay, waxaana rajaynayaa inaan ku wada kulmi doono filinkan iyo filimo ka xiiso badan. teeda kale daawadahaygii waqtigaada qaaliga qayb yar iga sii, waxaan rabaa wax yar inaan kuu sheego. waxaa jirta filin Turkiya ani idinkugu talagalay oon idiin soo khulaaseeyey, waxaana kasii daayay tiktokgayga hadeertaan. hadda kadibna tiktokan cusub ayaan ka wada socon doonaa asxaabay, sababtoo tiktokgayga hore cilad ayaa ku imaatay. sidaas darteedana waa iska daayay tiktokan ayaan idiin soo dhigdhigi doonaa filimaanta Turkida haddii aa ka heshiin, iyo waxyaabo kale oo adinka idin xiisi geliyo. tiktokan hala yaabin falowriskii waxyaabaha badan ku xiran, sababtoo aniga hore waxaan ugu soo gudbi jiray waxyaabo fani ah. sidaas darteed ayayna asxaabtan faraha badan iigu soo xirmeen. marka asxaabay tiktokan ayaa ka wada socon, asiga ayaana wax walba idiin soo dhigi doonaa. teeda kale waan jeclaa filimaantan Turkida inaan idinkugu soo gudbiyo YouTube channelkaygan, laakiinse midaas ma suurtagelaysa sababtoo copyright ayaa liidhahay. dhib ma laha, laakiinse tiktokgayga ayaan qayb usoo dhigayaa. YouTube hadduuna diida tiktoka isbareena, meeshaas ayaan iska kala kicinaynaa, maadaama aysan dad fara badan naga aqoonin tiktoka. adinkana asxaabay tiktoka booqda filinkana soo fiirsada iina soo sheega haddii aa ka heshiin. ra'yigiinana waa ii muhiim, haddaa ka heli weyseen meeshaas ayaa kusoo afjari doonaa. laakiinse haddaa ka heshiin dhiirigelinta halidinka arka muuqaalkana like fara badan soo saara, ciwaankana suu falow gareeya. commentii quruxda badanna waa dhankiina. kana raali noqda haddii aan hadalka idinku badiyo asxaabtayda. dhinaca youtube-kana insha allah waxaan soo gelin doonaa filimaan idin xiise geliyo. bye bye, dhammaantiina waa idin jeclahay. I love you so much.